magaalada Baydhabo oo ah caasimadda ku meel gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa muddo dheer ahayd xarun taariikhi iyo dhaqan u leh beesha Elay halkaasi ku dhaqan dood dheer oo muddooyinkii dambe ka dhex socotay odayaasha dhaqanka culimada iyo waxgaradka beelaha kale ee dega magaalada Baydhabo ayaa ugu dambeyntii horseeday in si rasmi ah loo xaqiijiyo in magaalada Baydhabo ay leedahay beesha Elay taasi oo muhiimad weyn u leh midnimada iyo sharafta beesha waxaa jiray warar sheegayay in beelaha qaar ay doonayeen in beesha Elay ay duudsiyaan ama ay dhinac marsiyaan xaqa ay u leedahay lahaanshaha magaalada Baydhabo muddo ka badan 7 sanadood ayay socdeen shirar safaro iyo wada hadallo dhaxmara odayaasha dhaqanka ee beesha iyo madax dhaqanka ee deegaanka shirarkan waxaa lagu gurfeeyay arrimo la xiriira taariikhda lahaanshaha dhulalka xuquuqda bulshada iyo doorka ay beesha ku leedahay magaalada Baydhabo safaro badan ayaa lagu tagay magaalooyin kale oo ku yaala koonfurta Soomaaliya si loogu kasbado taageerida culimada iyo waxgaradka gobolada kale safaradaasi waxaa hogaaminayay malaaqa guud ee jaaliyadda Sacuudi Carabiya ee 3 gambariya mashaayikhdooda Cabdinaasir Cali Macalin waxaa sidoo kale weheliyay ex xildhibaan Ibrahim Sambuur sidoo kale shirarkii la qabtay waxaa goobjoog ahaa Professor Fawzi Cabdinuur iyo Ahmed Eezi oo bilooyinkii dambe noqday agaasimaha TV-yada kala Arladi Media iyo Somali Cable 2018 ayuu si rasmi ah u bilowday juhdiga lagu bixinayay in la isku keeno dhammaan beelaha 3 gambariya mashaayikhdooda ugu dambeyn odayaasha dhaqanka iyo mashaayikda ayaa isku raacay in magaalada Baydhabo ay tahay magaalo ay leedahay beesha Elay iyadoo loo cuskanayo beesha Elay waxay muddo qarniyo ah ku dhaqnayd dhul Baydhabo iyo hareerihiisa ah beesha Elay waxay qayb weyn ka qaadatay dhismaha dhaqaalaha nabadda iyo horumarka magaalada Baydhabo shirarkii wada tashiga waxay keeneen in beelaha kale ee deegaanka qaarkood ay aqbalaan xaq beesha Elay ee magaalada Baydhabo haddaba waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha oo arrimahaasi ka hadlaya sida hadda malaaika guud kafadi shirkan fadi wali banaanka gudaha iyo dibadda 3 gambar mashaayikdo malaaga baari yaanka baahan inta la kooyo xaquuqdana basno walaalnimadan iyo islaamnimadan dantii u hortub lahaynay shirkoorto abiya baa shiraani tii ogaaytano anta kor aba asharo iyo dhulku inta ka sin baanta ka ber baanta ka balo la ka sharaa ogaaytan shir guud hortaba dhakadaani walgeeg ninko ma wali dhakadaani hortaba baadashay shirka abkaan yaboona kidee in dhikono yaanta ka fadhaasani maylana markan magalow dheegdeena marflow dheegdeena Elay oo maarne intan degmiyaal oo hani wareegsan degmo kala seeday eelka godaay warka godaw dheegdeena ma dheegna Elay deegaan sheekeegi daris wanaaga ogoli umutaha dhawaaye xaasidna ma saasa maarne tababar sheehay aboosheeha ka dhaqamay sidii awadna hadan madii araasan ودريله هذا ميله ويجيله جيرانه له بلدله اللي ثانه له كثر هذا اللي له بدو الى الله ما فرض الله نيرو تعرفين ما يرجعنا كيف يعني والبين يعني رجعنا بدو الله بين ما لكن ولا كوزويته wareego wiil iska deelo inaan hiraabta maanifulka degdegayo oo anta seeda meeliyar aray sagaal degay seeda anta al amar seeda male anta iska maraysan maylaray dejinol maylaray bood ma saaro walaare dada may Baydhabo may bunnaatay dada la udmudaadana weydiihayn arday dib kale to muwadin xaqiijinta magaalada Baydhabo inay leedahay beesha Elay waxay leedahay muhiimad dhowr ah kow midnimo waxay mideysay 3 gambariya mashaayikhdooda kuwaas oo horay ugu kala firdhanaa doodan awoodda siyaasadeed waxayna siinaysaa beesha Elay cod iyo saameyn weyn oo siyaasadeed gudaha maamulka Koonfur Galbeed horumarka bulsho iyo dhaqaale iyadoo magaalada Baydhabo loo xaqiijiyay inay leedahay beesha Elay waxay fursad u tahay in horumarinta bulshada ganacsiga waxbarashada iyo caafimaadka lagu sii xoojiyo
ugu dambeyn go'aanka lagu xaqiijiyey in baydhabo ay leedahay beesha Elay waa guul taariikhi ah oo ka dhalatay wada tashiyo dheer safaro iyo dadaal mideeya beesha oo dhan waxaana la rajaynayaa in go'aankan uu noqdo mid horseeda isku xirnaanta horumarka iyo midnimada meel kastoo ay joogaan saddex gambar iyo mashaaqdooda